kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo nooga hadlayno madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Maxamed Axmed Caalin oo soo gaaray magaalada tan London halkaas oo ay ka hortageen isla markaana soo dhaweeyeen qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedka Galmudug ee ku sugnaa magaalada tan London iyo waliba taaliyada Galmudug هذا ما سنتين رويال تي في شركاس waxaa casuumad sameeyay dawladda Denmark dawladahan danaya Soomaaliya oo contact groupka ayaa iyo dawladda Soomaaliya maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ka wada qayb galay arrimaha Soomaaliya shirkii Kampala feeskiisii labaad ayay ahayd horta ujeedada xagga nabadgelyada iyo xagga burcadbadeeda xagga maartay qoloyahan kale حق دينيga dagaalada wada marka arimahaas ugu xoog badnaa wixii laga hadlay kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Caalin oo nooga jawaabay su'aalo aan weydiinay wareysigan oo dhameystiran kordhow ayaa daawan doontaan balse ka hor intaan wareysigan aanu qaadin ka hor ayaa waxa noo suurta gashay inaan la kulmo dadkii halkaas ku soo dhaweynayay jaariyada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Galmudug magacayga waa Axmed Xasan Warsame Axmed Qalile waxaan kamid ahay jaaliyada UK Galmudug waxaanan gaar ahaan ka imid magaalada Birmingham waxaana ka soo qayb galay xafladda soo dhaweynta madaxweynaha Galmudug ku soo dhawow Saciid Arag barnaamijka maanta aan uga hadlayno ama se lagu soo dhaweynayo madaxweynaha Galmudug Caalin adigu ka waran maxaad oran lahayd soo dhaweyntaada بسم الله الرحمن الرحيم أنا أرتب مركو ووريسا إلهي بمهلا وحنا هذا علينا هي إذا عدى أما التلفزيون كان رويال تي في يو شغاله هذا يو ورياش هذا يو ضمان مامل كبا سيدا هجر لأنت أيوة قريب قادنا هي نسود وينتا يو معناها إن تحجلين تقيمها آت وفرها بدن له أيوة فكرها يعني إن أي وحقوق قبطان بالشدة الصومالية ملكستو أي شوغان تاس أيام مركورة توحن لا يحي تي فيجو وأدياد وجمعة سنة هاي وحنا لا يهجروا هنا شوغو مركا كلاتو ندبوا قصوا النقطة مناسبة دان أيضا أسود وينتا وحكلتو فرحنا عينا نسود وينو مدحوينه Galmudug oo maanta ka soo degay aan Heathrow Airport ilaa ay caawina aan u taaganahay arintiisa taas ayaan anigoo ku hadlahay waliba jaaliyada West Midland Birmingham isla markaasna kamid ah ganacsatada Birmingham oo ilaa ay maanta aan u joogno arintaas in aan soo dhaweynta ka qayb qaadano de wixii kala too faahfaahina iyo arrimaha kale tan dib baan maartay idinkaga soo gudbin doonaa aad baan u mahadsan tahay ma la hadasheen wali maxaad kala hadasheen saadaad la hadasheen doonaysan inaad kala hadashaan runtii wali labaana hadlin laakiin waxa aan doonaynaa inaan kala hadalno horumarka maamulka iyo macnaha horumarinta bulshada arrimaha ka cusub Soomaaliya sida abaaraha iyo dhibaatooyinka ka jira colaadaha ka jira sidii maarta wax looga qaban lahaa sidii loo ballaarin lahaa maamulka Galmudug sidii looga wada mid noqon lahaa hoggaankaas dabacsan ee ogol wada noolaanshaha iyo nabadda intaas oo dhan ayaan rabnaa inaan u soo jeedino sidii horumar wanaagsan looga gaari lahaa madaxweynaha iyo wasiirada la socdaba inaan codsiga u soo jeedino intaasi kadib waxa noo suurta gashay inaan la kulanno isla markaana su'aalo weydiino madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Maxamed Axmed Caalin ugu horeynba taala madaxweyne ku soo dhawow Royal TV su'aashada ugu horeysa hadaan raaciyana shirka haddaad ku soo gabagabayseen Denmark Somali Contact Group maxaa looga hadlayay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما سنتين رويال تي في شركاس waxaa casuumad sameeyay dawladda Denmark dawladahan danaya Soomaaliya oo contact groupka ayaa iyo dawladda Soomaaliya maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ka wada qayb galay arrimaha Soomaaliya shirkii Kampala feeskiisii labaad ayay ahayd horta ujeedada xagga nabadgelyada iyo xagga burcadbadeeda xagga maartay qoloyahan kale
xagga diiniga ah oo dagaalada wada marka arrimahaasa ugu xoog badnaa wixii laga hadlay arrinta burcadbadeeda waxaa la sheegaa galmudug inay ka mid tahay meelaha ay xoogga ku leeyihiin burcadbadeedu sida hobyo iyo xaradheere baaba la sheegaaba inay tahay hoyga burcadbadeeda arrintaasi ma ka hadasheen waxa weeye horta arrinta ugu daran caalamka badanaaba hal burcadbadeed keliya ka hadlaa laakiin annagu waxaan sheegnay 2 burcadbadeed inay jirto midaan sunta ku daadisa badda Soomaaliya kalluunkana gurata waa burcadbadeed aastay midaan kala waayo dhalinyaradii markii kalluumaysatada dhabta ah ay badda galeen kuwaana la dagaalamay ayaguna markaas ay abuurmeen kuwaan marka waxa weeye waxay u baahan yihiin dhaqan celin kuwa aan u baahnayn dhaqan celintana waxa meesha wax looga qaban karo wax way bariga in maamulada marka jira la xoojiyo ayaa dhammaan la isku wada raacay oo la yiraahdo xagga bariga ha laga maartay maamulo nimankaas sidii wax looga qaban lahaa ayaguna waa ku dhamaadeen dhibaatooyin caalamka oo dhanna way gaarsiiyeen marka dadka dhimanaya horta waa Soomaali hadii dhibaatada taagan ee gaajada iyo shaqo la'aanta iyo wixii haday ku sii badatay ayaguna waa badanayaan rajay qabaan oo waxa u muuqda markabkaas ay leeyihiin hadaa qabatid lacag ka heli doonta dhibaato ay kala kulmeen fara badan waayo dadka Soomaalidu waa aragtay dhalinyaro badan badda ku baabaaday ayagoo rajeynaya wadamada khaliijka oo shaqo dooranaysan oo aan wax rajo rasmi haysan ay badda ku baabaayeen marka waa la isla gartay aadan uga hadalnay anaga hadii run laga sheegayo waxa weeye meesha 9 milyan 7 milyan 8 milyan laga siinayo 2 milyan 3 milyan maamulada dhalinyarada wax loogu qabto ayaa ka fiican ayaguna ay ku joogsanayaan caalamkuna ku nabadgeliyaan lacag la idin siiyo oo laga yaabo in dulaalin fara badan soo marto maxaad ku qaban kartaan horta dii wax walba sida fiican oo tooska loo maro wax way taraysaa hadda lacagaha laga sheegay shirka inta aan ku jirnay iyo dhibaatada taala wadanka waxa 3 goor badan lacagta la sheegay waxaan ka sheegay marka lacagtaas deeq bixiyaashu ay bixiyeen maraakiibta faraha badan oo deeqaha sida oo soo degaya oo aanu hadda xamar aan kula soo kulmay waxaan kala saari waayaan ma riwaayadna loo dhigayaa waxa jira lacag ah ma waa la xisaabtamin oo deeq bixiyaashii arrintaasna dadku aad ay maaragtay u dhageysteen goboladii dhexe ama meelihii ay burcadbadeed iyo waxa ka jireenna lagama warhayo marka haddii xataa deeqahan soo degaya dadkii la gaarsiin waayo waxay aadayaan meeshay ka soo degaan burcadbadeedu waa niman lacag badanna haysta xeelado dhaadheerna adeegsada sideed uga hortagi kartaan horta dhibaatada anaga kaliya ma haysto Soomaaliya kaliya caalamkii oo dhan ay wada taabatay hadday caalamka wada taabatayna caalamku meel ka soo wada jeesta waxa weeye xeel kastoo ay wataan ayaga meel ma gaarayso waa la qaban karaa kule ma isleedahay caalamku waa ka dhab in ay rabaan inay joojiyaan ama se dabar gooyaan burcadbadeeda waa u maleynaa hadda inay soo karta ayaga laftirkooda jaale madaxweyne maamulka Puntland iyagana waxaa la sheegaa in dhibaatadan oo kala haysato dhinaca burcadbadeeda arrintaas wax xiriir ma ka leedihiin mase ka yeelateen maya kama aanan yeelan weli madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Faroole maalmo dhaweyd saxaafadaad iska weerarteen arrintaas maxay ku dambeysay arrintaas waa dhamaatay xawar markaas ugu tagnay labadii shirki aan wada galnay labadeena waa laga heshiiyey waa istaagtay labadeena idaacadahan ka wada hadalnay in si sax ah loo dhameeyay wax dambe oo dhibaato ah oo dhacayna ma jirin dadku aad u xiiseynayeen inay ogaadaan waxyaabaha ku heshiiseen maxaa ku heshiiseen nabad iyo iskaashi aan ku heshiin in wax walba oo soo kordha inta aan gacan loo bedelin bal in la iska wareysto la iska kaashado wixii dhib wadana la iska wada qabto
dagaalkii ka dhacay xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo ayaa keenay ismaandhaafka oo Faroolena uu kugu eedeeyay inaad ku lug leedahay maamulka ku lug leeyihiin dagaalka eedaasi miyaad qaadatay mise tuhun ayay ahaydoo eedoo dhani maysan jirin oo madaxweynaha Puntland Faroole uu iska jira hadalka taas cara keentay waana laga heshiiyay marka wax tagay oo la dhameeyay oo laga heshiiyay waxa uu si dabagelayay adiga sarkaaga ma garanay maadaama aad heshiiseen oo rag saaxiib hadda tihiin shirka garowe ka dhici doona dabcan waxaan filayaa si farxad leh aad ka qayb geli doontaan ka maamul ahaan seed u aragtaa shirkaasi lagu qaban doono garowe anaga Soomaaliya meesha u badato isku raacdo wali anaga wax dhibaato ah dhinacayna ka yimaada horta ma jiraanba oo diidma ah negative ah ma jiraan Soomaaliya haday wada goosato in xagga la aadana waa tageena haday wada diidaanna anaguna hada Soomaaliya raacayna shirkii Somali Contact Group ee lagu soo gabagabeeyay Denmark oo laga casbay markii laga yimaado waa maxay ujeedka safarkaaga aad ku timid wadankan UK أنا دولة أيا عزمت هالكان حدنا أوجد ساعد أنا جو عن ماشي عند جناي عن إيمان إن هريك آذي كل ما كآذي ساعدنا يسوع دم هذا برينا ولا ساعدنا برا ولا يحي بركة عرب بدو سحريرة أيا جرا أو كسارسن دولة إيو عيدا كبطة إيو إن نسوى هذا عربنا وحنا إسلاميل لكنه ما في عنها دعوة وأكسو استاجين. maxaa ka mid ahaa waxyaabaha ka wada hadasheen sidii uun arrimaha dhibaatooyinka jira Soomaaliya meesha dhibaataysan laga hadlayo qofka buka ay la daaweynayo waa Soomaaliya way Soomaaliya anagu marka meel ka mid ah ayaan nahay marka in hoos wax walba maanta laga soo dhiso la soo daaweeyo mid weyn waa la gaarayaa marka taasaan ka hadlayna waa sidee xiriirka idinka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Galmudug iyo dawladda federaalka xiriirkiinu waa see runtii waxa weeye waa fiican yahay haddaan isku tagnay prime ministerka iyo anaga si gaar ah waliba u sii wada hadalnay ilaa iyo hadeerna asaga waxaan ka arkaynaaba wax wanaaga mooye wax dhibaato ah ma aanan ka arkin heshiis waa la galnay dawladda federaalka oo qoraaladiisii la soo geliyayba website-da waad aragtay marka anaga ka Galmudug ahaan waxaan joognaa waxa weeye Soomaaliya nabad iyo wanaag mar walba hatta hadii waxna laga bixiyana in anagu horseedno nabad ayaa jeclaan oo dulqaadan waa la socotaa inta qaxooti gobolkeena jooga meel walba ka yimaadaan meel walba dhibaato abaareed dhibaato colaadeed barakicin kale waxa soo dhan waa soo wada dhaweynay dadka Soomaaliyana marka waxaan u rabnaa mar walba nabadaas isku xirkaas waana tanaasuleynaa wixii kasta oo naga hor yimaada si loo helo wanaag Soomaaliya oo dhan waxaan ugu baaqayaa inay ayagu isku tanaasulaan jaal madaxweyne maamulka Galmudug maalmihii ugu dambeeyay siyaasad cusub ayuu la soo baxay oo ah isballaarin in Galmudug la ballaariyo ma laga yaabaa arrintaasi inay khalkhal geliso maamulada ama dadayowga aad dariska tihiin oo halkaas isku dhac ka yimaado qofkii aan wanaag rabin khalkhal waa gelaya laakiin qofkii raba wanaag dastuurka ka mid tahay Soomaaliya nabad ha laga dhigo hala bala martaqana dadka hal isku keeno dib u heshiisiin hal sameeyo talaabada aan qaadna maahina anu waxa ka duwan ma aan sameyn maamulka Galmudug xuduudku inta halkee ku egyahay ilaa iyo xagee weeyaa xuduudku xagee ku egyahay Galmudug waxa way galguduud iyo mudug way hadda marka cidii kale iyo gobolkii kale oo yiraahdo waxaan idin la qaybsanaynaa waxaan isku darsanaynaa sayna waa soo dhaweynayna waxaan soo gaarnay gabagabadii waraysigeena jaal madaxweyne waa maxay hadafkaaga ama siyaasadaada cusub doonayso inaad meel mariso dhawaanahan nabadaynta waa markii ugu horeysa horta
soomaaliya meel kasta ha ka yimaade ayadana sida aan hore u balan qaadnay u sameynay waa soo dhaweynaynaa waxaa ugu dambeeya oo anu aan raadinaynaa ilaa aan ka helno soomaalinimo waa daba soconaynaa aad iyo aad ayaad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo aanu su-aalo kala duwan weydiinaynay aad ayaan ugu mahadcelinaynaa jecel madaxweyne marka labaad mahadsan tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waraysigii iyo barnaamijkii gaarka ahaa ee maanta aanu ku soo qaadanaynay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo soo gaaray magaalada tan london waa anigoo ahaa cabdinaasir ciro iyo bahda royal t v oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo علي حقالي معن قلن وبنا صومالي قربيو علي حقالي معن قلن وبنا يا نسكرا كوري كبيرات كسيمتهاي نسكرا كوري كبيرات كسيمتهاي كارب